munaasabadan oo ahayd mid si heersara loo soo agaasimay ayna ka soo qayb galeen safiirada $24 Afrikaan oo safaarada kule wadanka Zambia iyo diblomaasiyiinka kala socotay wadamada Mareykanka, Britain, France, Turkiya, India, China, Japan iyo waliba Saudi Arabia ayaa lagu maamuusay xuska kontaguurada ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay ururka midowga Afrika AU. dhanka Zambia waxa ka soo qayb galay munaasabadan qaar ka mid ah golaha wasiirada Zambia iyo waliba xildhibaano waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay safiirka Jamhuuriyadda Zimbabwe Mark Stova wuxuuna sheegay in qaaradu ay qani ku tahay macdan aan dhamaanayn sidoo kalena ay qaaradu ku tilaabsatay horumar la taaban karo wuxuuna ugu baaqay diblomaasiyiintii goobta joogtay inay taageeraan wax u qabashada aqoonta qaarada loona guntado sidii loo tirtiri lahaa magaca qaarada saboolka ah. safaaradaha ka soo qayb galay kulankan ayaa waxa safaarad waliba ay soo bandhigaysay waxyaabaha u gaarka hidaha iyo dhaqanka u ah iyo sidoo kale cunooyinka uu dal waliba gaarka u leeyahay. safaarada Soomaalida ee Zambia iyo haweenka jaaliyada Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay cunooyin Soomaalida u gaar ah oo dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasabada ay aad ugu riyaaqeen waxaana cunooyinkaasi kamid ahaa hilibka nooca ay Soomaalidu u taqaan oodkac iyo waliba canjeerada Soomaalida waxaana dadkii goobta joogay isku raaceen in nooca hilibkaasi u gaar yahay Soomaalida waxayna madashii ay Soomaalidu ka deganeed goobta ay noqotay mid ugu mashquulka badan. arrinta aadka u xiisaha badan ayaa ahayd Soomaalidu waxa ay goobta keeneen caanaha geela taasi oo aad ula yaabeen marti sharaftii ka socotay wadamada koonfurta iyo bartamaha qaaradda Afrika maadaama wadamadaasi laga aqoon caanaha geela balse waxa caanaha geela aad ula dhacay martidii ka socotay wadamada reer galbeedka iyo waliba bariga Afrika kuwaasi oo aad u yaqaan waxtarka caanaha geela. sidoo kale waxay Soomaalidu goobta ku soo bandhigeen dhaqamada iyo waliba ciyaaraha ay Soomaalidu caanka ku tahay waxaana goobta laga shiday video uu soo diyaariyay stuudiyaha TV-ga Universal Zambia kaasi oo ka turjumaya dhaqanka iyo waliba xoolaha ay Soomaalidu hodanka ku tahay. dhaqankeena wanaagsan kan ku dheelmanaynayo hadiyo faraskayga iyo qalma dhalaya naya qalma dhalaya dhoolay anta ka dhibaya dhoole iyo qalma dhalaya dhoolay anta ka dhibaya dhoole الكدو وين بيكدها أنا دايح ملوبان كدانتينا يا waxaana Soomaalida loo ogolaaday inay goobta ku soo bandhigaan ciyaaraha ay Soomaalidu gaarka u leeyihiin waxayna soo bandhigeen ciyaaro aad u qurux badan oo ka turjumaya dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliyeed. سعيد مصداهر Universal TV Lusaka.